maanta oo ay taariikhda ku beegan tahay 9 bisha Abriil sanadka 2022 waxaa la qorsheynayay in magaalada Jowhar ay ka bilaabato doorashada saddex ka mid ah kuraasta ku harsan magaalada Jowhar kuwaasi oo kala ah Hope Eber 24 106 iyo 140 laakiin isqaqabsi iyo muran ka dhex jira beelaha uu ka dhaxeeyo kuraastaasi ayaa sababtay in doorashada maanta ay qabsoomi weydo xiisada ugu weyn oo musharaxiinta ka dhex taagan ayaa ah sida loo maamulayo guddiga soo xulaya ergada wax dooranaysa iyo odayaasha dhaqanka ee la rabo in ay soo xulaan ergada dooranaysa xildhibaanada xiisada u adag waxay ka dhex taagan tahay beelaha iskale labada kursi Hope 106 iyo Hope 140 oo beel walba iyada dhexdeeda uu ka dhex taagan yahay muran aad u xoogan xalay guddiga doorashada dowlad goboleedka Hirshabelle waxay soo saareen guddiga soo xulayo ergada dooranaysa kursiga Hope 140 oo uu hore ugu fadhiyay xildhibaan Cabdiqaadir Cusable Cali laakiin guddigaasi waxaa ka hor yimid musharaxiinta qaybta ka ah tartanka kursigaasi waxayna saluugeen qaabka guddiga loo soo xulay dhinaca kale kursiga Hope 106 oo sanadkan tartan aad u adag oo ka jiro ayaa isna beesha iskale kursigaasi waxaa ka dhex jira xiisad aad u xoogan taasi oo ku saabsan odayaasha dhaqanka ee soo xulaya ergada wax dooranaysa waana kursiga ugu musharaxiinta badan kuraasta taala magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle musharax waliba ayaa xusul duub wuxuu ugu jiraa guddiga soo xulaya ergada waana tan keentay in doorashada dib u dhac uu ku yimaado lama saadaalin karo waqtiga saxda ah oo ay ku qabsoomi karaan saddexdaasi kursi Hope Eber 24 Hope 106 iyo Hope 140 oo guddiga doorashada ay shaaciyeen 6 bishan Abriil maadaama loolanka ka dhex jira musharaxiinta uu yahay mid saameyn xoogan leh Ibrahim Ali Nuur TV Universal Jowhar